tobankii bishii May ee sanadkan ayaan tabinay inay dawladda Sacuudi Carabiya doonayso inay faragelin ku samayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxaan xilligaasi ku sheegnay tabinteenna damaceedu inay doonayso in ay mariso 3 kooxood ugu dambayna waxa ay go'aansadeen inay qaataan dhabaha ah in xubnaha go'aaminaya mustaqbalka doorashooyinka ay soo wada dhaweystaan loo sameeyo ballanqaadyo taasna ay noqoto dhabaha ay ku soo gasho saaxadda siyaasadda gaar ahaan waqtigan oo loo diyaar garoobayo qoomsoomidda doorashooyinka loo madlan yahay tan iyo dhamaadkii bishii Abriil ee sanadkan in ka badan 4 jeer ayay Muqdisho tageen dowlamaasiin ka socota Sacuudi Carabiya lugtii ugu dambeysay waxa ay go'aamiyeen in la hirgeliyo xafiisku meel gaar ah oo si qarsoodiya looga kireeyay mid ka mid ah hoteelada ku yaala xayndaabka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho sidoo kale waxa ay weydiistaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya inay helaan caag nabad ah oo ay safaarad ka furtaan 25 bishan ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble oo ay lugtiisii labaad u noqonayso isaga oo wasiirka koobaad ah uu ku tagayo Sacuudiga oo hadda horkacaya madaxda dawlad goboleedyada ayaa u socdaalaya dalka Sacuudi Carabiya martiqaad uu Nairobi ugu keenay safiirka Sacuudiga ayaa sidaasi ogolaanayay waxaana tabinteena maanta aynu ku eegaynaa halka arrin ee midaysa Soomaalida hoggaankeeda ujeedka martiqaadkan danta Sacuudiga ee hadda waa maxay malaayiinta dollar ee ay Sacuudigu ka xayirtay Soomaaliya ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda dawlad goboleedyadu dan ma ka yeelan karaan Riyaad danaha Sacuudigu ma ka fuli doonaan Soomaaliya cabsi ma laga qabaa sidii dhacday Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Geedi inay la kulmaan madaxda Sacuudiga aadaysa 25 bishan si aanu dhabta u aadno iskuna helno jiibta iyo jaanta aan dib ugu laabanno sanadihii 2017 iyo 2018 urashadii nabad iyo nolol iswadata sanadihii ay wada shaqaynta wanaagsan iyo laylinta arrimaha dawladnimadu ka dhaxaysay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre Sacuudi Carabiya waxa ay u ballan qaaday bilowga imaanshaha xafiiska lacag ka badan 100 milyan oo dollar taas oo wax looga qaban lahaa kaabayaasha dhaqaalaha si gaar ah wadooyinka garoomada diyaaradaha iyo dekadaha dalka qaybo ka mid ah waxa ay ka soo baxday taasi booqashooyin la isdhaafsaday oo labada dal ah sanadahaasi aanu soo sheegnay Sacuudigu lacagtaasi way joojiyeen marka laga reebo 50 milyan oo dollar oo is arag Farmaajo iyo Maxamed bin Salmaan ka soo dhex baxday waana sababta ugu weyn waxa ay uga dhigeen Sacuudigu inay Soomaaliya dhexdhexaad ka qaadatay xiisadii Khaliijka ama ay garab saar la yeelatay dalka Qatar wixii xilligaasi ka dambeeyay Sacuudigu waxay hoos u dhigeen xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya waa ay diideen inay waraaqaha xataa ka qabtaan safiirkii ay Soomaaliya u dirtay Riyaad taasoo diblomaasi ahaan ka dhigan dagaal adag oo siyaasadeed Riyaad waxa ay wakiilo degdeg oo gaar ah u dirtay Muqdisho waxaana ka soo muuqday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Farmaajo oo xiran tuuta military qaabilayana wafdi ka yimid Riyaad oo siday dhambaal ka socday boqortooyada Sacuudiga laakiin dhambaalkaasi ilaa iyo hadda lama oga waxyaabaha baalashiisa ku xardhanaa sanadihii 2017 iyo 18 Riyaad waxa ay si bahdilan u qaabishay 8 ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya oo u socdaalay inay heshiisyo la saxiixdaan Sacuudi Carabiya laakiin waxa loogu quusgooyay markii loo soo diray qaabilidooda agaasimo waaxeed ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee Sacuudiga taasoo dhammaan waji gabax ku noqotay dawladda federaalka ee Soomaaliya damaca siyaasiyiinta Soomaalida siyaasiga Soomaaliga ah kumacaashka magaca dawladnimo waxa ay Soomaaliya ka noqotay shaqo qof kasta oo xil haya markiisa ku ganacsado safarka ayaana ah meelaha ugu badan ee siyaasiga Soomaaliga isku iibgeeyo waxa uu boorso ku xambaaraa sharafta ummadda waxaana uu meel cidlaah uga dhaqaaqa karaamo aan si dhib yar dib dambe loogu soo celin karin danaysiga shakhsiga ayaa inta badan madaxda Soomaalida u eekaysiiyaan dana qaran waxa ayna gacan manan shakhsiyadeed ka aradan aragti dawladnimo weydiistaan madaxda ay la kulmayaan gaar ahaan marka ay joogto Khaliijka oo lacagaha si toos ah ugu bixiya cadaan ama cash aan bangi iyo xisaab celintoona loo marin safarada madaxda dawlad goboleedyada ayaa kolkii hore ahaa kuwa caan ku ah danaysi qaraabsi iyo faakahaysi hadba xaaladda taagan sida ay ugu hirgasho sanadkii 2018 madaxweynihii hore ee Galmudug nabadoon Axmed Ducaale Geelle Xaaf
ayaa ugu magac daray qaraabasho tag aan leexleexad lahayn 4 sano oo wuxuu eg ganax safar dibadeed oo siyaasiyiinta Soomaalidu suuqeyn isugu sameeyeen ayaa u muuqatay in si wadar loo jamin doono toddobaadkan waa safar ay kooxda maamusha maamuladu weheliyaan ra'iisul wasaare Roble koox caawiyaasha iyo la taliyaashiisa u badan waana martiqaadka ay sanadkan fidinayso Sacuudi Carabiya muxuu salka ku hayaa martiqaadkani sida aan la socono Soomaaliya waxa ay bartanka u taagan tahay kala goy siyaasadeed waa xumadda doorashada oo kaarkeedu meel sare gaaray si looga gudbo kala goyskan ciidooyin badanna ay ku xeeran yihiin waxa kooxaha aragtay siyaasadeed kala leh ee Soomaalidu gudaha iyo dibadda ay ka wadaan loolan doorasho tan Sacuudiguna waxa ay la mid tahay dhaqaaqyada ka socda Nairobi Kenya Dubai Imaaraadka Carabta Istanbul Turkiga Garowe ama Muqdisho ku daro kuwa danabaysan ee daadsan ilaa Dooxa ujeedada ugu weyn ee kulanku waa xogtii aanu baahinay May 2021 yoolkula waa in uu helo gacan dawlad goboleed oo soo saarta xildhibaano la aragti ahaan dhankoodan u jajeera laakiin durba waxa ay madaxa isla gelayaan Imaaraadka Carabta oo aan jeclayn in la soo saaro xildhibaano u janjeeri kara ugu yaraan xagga ururada diiniga ah oo ay u arkayaan halis weyn oo markooda malag ku noqonaysa si fududna uga faa'iideysan karto dawladda yar ee Qatar danta Sacuudigu waa maxay Sacuudigu waa dalka haga inta badan siyaasadda khaliijka waa halka ay dhacaan labada xaram isbeddelka siyaasadeed ee gudaha Sacuudigu waxa uu keenay in aragti ka duwan tii hore Sacuudiga laga qaato taasoo ay aad u afalkiyeen kooxo hore oo gacan saar u lahaa wadaadada maamula Riyaad Sacuudigu waxa ay qorshaysay siyaasad ay ku dhexgalayso dalalka Islaamka si ay hormuud uga sii ahaato wadamada sunniga aaminsan hogaamiyaasha Soomaalidu maxay dana oo ka leeyihiin Sacuudiga qorshe qaran mise ma jirto dan qaran ama mid aayatiin oo aan ka ahayn gacan maris Suuriya ama soko kii ay soo helaanba madaxda Soomaalidu yoolka ugu weyn aan ogaanay waa in madaxda boqortooyada Sacuudigu ay dhinacyadan weydiisan doonaan dhaqaale ay doorashada ku qabtaan qiimeynta ay wataan waa 20 milyan oo doorasho ku qabasho ah iyo ka miisaaniyad oo dhan 60 milyan oo dollar oo ay baahi u qabaan darafyadu kooxda hadda safarka wadajirka ah booqashadooda waxa ay ku soo gabagaboobi doontaa in Sacuudigu bixiyo ilaa 50 milyan oo gunada doorashada iyo sahayda safarada madaxda dawlad goboleedyada ee halkaasi booqanaysa ah maxaa kulmiyay waqtigan madaxda Soomaalida aan dib u laabanna mar kale sanadkii 2007 Sacuudi Carabiya waxa ay martiqaad ugu yeertay madaxdii dawladda ku meel gaarka ahayd waxaana hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf oo ay weheliyaan Cali Geedi iyo gudoomiyihii baarlamaanka Aadan Madoobe saddexduba Riyaad ayaa u yeertay waliba waa ay soo dhaweysay si meeqaam sare ah ayadoo la heli karay in midkood hanaan dawladnimo loogu yeero haddana in si siman loo siiyo dhaqaalaha sakada ama Suuriyada ayaa ahayd yoolka ugu weyn ka soo laabashadii safarkaasi dhaqaalihii laga helay waxa la rumaysan yahay inuu teedhexaar u noqday khilaafkii ka dhex qarxay Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Geedi kaasoo ugu dambayn sababay in Geedi iyo Cabdullaahi ba Allahu raxmade bila kadib ay iscasilaan si kale gooni ah mid kastaana ku baxay hurguma ka dhashay iskhilaafkii Sacuudiga hadda iyo safarkan inta badan Soomaalidu kuma kala leexata manfac iyo dheefsiga qaraabsiga waana shayga kaliya ee aysan tanaasul isaga samayn har xilaalaha kulmiyaana waa gacan saarka Sacuudiga iyo khamiisyada xagga hoose jaabka ku leh Suuriyada iyo lacagaha Carabtu baxshaan inta badan sida ay marar badan qireen doolaansiinta reer galbeedka marka ay joogto xaaladda Soomaaliya lama mariyo sanduuq dawladeed iyo xataa bangi la ogaan kara tixraacyadiisa mararka qaarkoodna boorsooyinka ayaa lagu geeyaa goobta la doonayo si dhow u eeg dhaqaaqyadii Imaaraadka Carabta iyo Qatar ee Soomaaliya bilihii ay xiisadoodu kacsanayd iyo xaalka Soomaaliya si madaxweyne gobol kasta ama heer federaal u qaabaysta loolankiisa doorashada waxa la gudboon helista lacag si ay u wada guuleystaan kooxdan waxa ay Sacuudiga hordhigayaan inaysan kala qaybsanayn oo Roble wakiil ka wada yahay balse hameenka safar ku dhamaado nin kasta gobolkiisa ku noqdo ayaa saaxiibtinimadii Sacuudiga ka soo bilaabatay laasi doona waana halka bilowga ee qolo kasta ay dhinaceeda u janqaadi doonto quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga
Chelsea Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay